hay'adda Muslim World League oo kaashanaysa hay'adda IRO ayaa cisbitaalka guud ee magaalada Burco ka bilowday howlgal indhaha loogu jeexayo isla markaana loogu daweynayo 2500 ilaa 3000 oo qof oo xaalad caafimaad darro oo xagga indhaha ah ay soo wajahday waxaana howlgalkan caafimaad ee xagga indhaha ah fulinaya hay'adda Albasar waxaana uu soconayaa 15 ilaa 22 bisha July iyadoo wafdiga caalamiga ah ee hay'adan ka socday uu hogaaminayay agaasimaha caafimaadka ee hay'adda IRO madaxa xafiiska hay'adda IRO ee Somaliland Khadar Xuseen Aadan iyo agaasimaha guud ee cisbitaalka Burco Dr. Cabdi Suudi ayaa ugu horeyn ka waramay howlgalkan caafimaad ee xagga indhaha ah ee laga fulinayo cisbitaalka magaalada Burco faraxsanahay inuu ka bilaabmay campaignkii indhaha dadka loogu qalayay oo ay maalgelinaysa raabidada caalamiga islaami kaashanaysa جمعية البصر كامبينكني وحو تارجت يهاي أو هالبيجو يهاي dadka indhuhu xanuunayaan ama indhala'aanta ku soo dhashay ama indhaha ka cabanaya ee aan awoodi karin in ay fiigii ama lacagay ku qabsan lahaayeen ay caafimaadka ku tagi lahaayeen in loo fudaydiyo oo bilaash lagu qalo targetka ama hadafkeeduna waxa weeye ilaa 2500 oo qof oo isugu jira daweynayeen dhaqalid aad baan ugu faraxsanahay maamulkii degmada iyo maamulkii caafimaadka iyo dhammaan shaqaalihii gobolkuba inay nala shaqeeyeen adeegan cisbitaalka Burco laga fulinayo waxa weeye waa mid lagu talagalay in dadka horta lagu qabto si bilaash ah oo wax lacag laga qaadayn kaasoo isugu jira daweyn iyo qalliin runtii adeegan shalay uu bilaabay maanta wana loo daahfurayaa shalay ilaa waxa la qalliin loo diyaariyay dad gaadhay 200 qof ujeedaduna waxa weeye in lagu daweeyo ama lagu shaqeeyo ama lagu qalo dad gaadhay tiradoodu gaadhayso ilaa 4000 ama 3000 oo qof runtii si wacan baan ugu socdaa runtii waxaan u mahad celinaynaa hay'adda Islamic League oo mashruucan maalgelinaysa iyo Albasar Foundation oo fulinaysa iyo wasaaradda caafimaadka saddexdaas iska kaashanaya mashruucan wuxuu soconayaa muddo 2 cisho ayuu muddo weeyga ayuu campaign-ku soconayaa wax lacagna dadka laga qaadi maayo marka dadweynaha reer Togdheer ama reer Burco ama reer Somaliland waxaan ugu baaqaynaa muddada ay dhaqaatiirtu nala joogto oo adeegan ay noo qabanayaan kaasoo ah in dadka la daweeyo wixii daawo u baahan wixii qalliin u baahan la qalayo inay ka faa'iideystaan oo ay yimaadaan oo aanay dib uga dhicin waxaanu soconayaa ilaa maalinta Khamiista hadii la yiraahdo maayir ku-xigeenka degmada Burco iyo xildhibaan Mubaarak Bidhi ayaa dhankooda ka dareen celiyay howlgalkan indhaha loogu jeexayo isla markaana loogu daweynayo dadka aragga naafada ka ah iyagoo si diiran ugu mahad celiyay hay'adda howlgalkan fulinaysa hal fariin halkan aan ugu direynaa reer Burco iyo reer Togdheer علينا هاي مشروع مشروع بلاش وماليه ودتكي أي هذه شيء لو نشري أما ذلك وحلاقي كمان كريماي دبده لوجوته باي هاي ما أنت قبل كيني دل كيني كان وحفي وحلا عقول اللي تكدوني أنا مش وحلا اللي كرر معنا كفاية استان بدأ ويجا مشروع عسكر السعودو محيا هدي اسبتال كبير نوع عنده نوع دور بهالنوع وحلو بينا كفاية استان مشروع وحما runtii aan ku boorinayaa markan aan baaq madraya bulshada ku nool gobolka Togdheer madaxdeeda inay ka faa'iideystaan mashruucan indhaha dadka loogu jeexayo lagu daweynayo oo bilaash ah dhakhtarka weyn magaalada Burco weeyaan kaalaya iskaarsiya Ahmed Salebaan Arab Ahmed Kaafi Bulsha TV Burco